maamulihii hore ee dugsiga sare ee Guutaale Secondary School ee magaalada Caynaba Ismaaciil Cali Cartan ayaa diiday isla markaana ku gacan saydhay inuu xilka ku wareejiyo maamulaha cusub ee dugsigaasi dhawaan ay u soo magacowday wasaaradda waxbarashada Somaliland mudane Cabdi Xaashi Xirsi munaasabad loo qabtay xil wareejinta oo ka dhacaysay xafiiska maamulka gobolka Saraar sidoo kalena ay goobjoog ka ahaayeen maamulka heer gobol iyo mid degmo isla markaana laga dhuursagay inuu xilka maamulaha dugsiga sare ee Guutaale lagu kala wareejiyo ayaa madashaasi uu maamulay Ismaaciil Cali Cartan kaga dhawaaqay inaanu xilka wareejin doonin tan iyo inta ay gobolka soo gaadhayso wasiirka wasaaradda waxbarashada Somaliland Samsam Cabdi Aadan oo iyadu maamulay soo magacowday Cabdi Xaashi sidoo kalena aan iyadu wax muuqda oo la taaban karo ka qaban xaaladda goobtan marayo dugsiga sare ee Guutaale Secondary School dhanka kale dugsiga ayaa muddo 20 maalmood u xanibnaa xil wareejintani isla markaana ay ardaydii iyo waliba macallimiintii ka dareereen kadib markii uu meesha ka baxay maamulkii cusbaa ee la filayay inuu xilkani loo soo magacaabay si rasmi ah ula wareego bilaabana hawlaha dardargelinta ee dugsigaasi ugu dambeyntii taasi ma aysan dhicin balse ciidanka ammaanka ayaa xabsiga dhexe ee magaalada Caynaba u taxaabay maamulihii hore ee dugsigaasi Ismaaciil Cali Cartan kaasi oo sheegay inaanu furaha dugsigan wareejin doonin waa haddii ay wax kasta dhacaan maanta ayay ahayd markii loo ballamay inuu maamulihii hore xilka iska wareejiyo balse nasiib darro taasi ma aysan noqon mid lagu guuleysto kadib markii uu sidoo kalena maamulihii cusba waa Cabdi Xaashi uu diiday inuu xilka maamulka dugsigaasi sare ee Guutaale Secondary School kala wareego Ismaaciil Cali Cartan taasi oo uu ku sifeeyay inay weli kala dhiman yihiin qalabkii iyo waliba furayaashii dugsigaasi oo iyana noqotay mid muranka sii xoogaysta isla markaana murug labaad si gelisay xil wareejinta dugsigani oo walba la daara dhacayay arrimo dhowr ah oo isbiirsaday isla markaana aan waqti xaadirkan la garan karin xaaladiisu meel ay ku dambeyn doonto gudoomiyaha waxbarashada gobolka sare Cabdilaahi Cabdi Xaaji Yusuf oo TV-ga caalamiga ee Somali Channel wax ka weydiiyay isagoo ku sugan magaalada Hargeysa sababta ay u dhici laadahay xil wareejinta maamulaha dugsiga sare ee Guutaale Secondary School ayaa sheegay in Cabdi Xaashi maanta laga bilaabo uu yahay maamulaha dugsiga sare ee Guutaale loona baahan yahay inuu maamulihii hore ee dugsiga looga fadhiyo tanaasul kuna khasban yahay inuu xilka iska wareejiyo sidoo kalena waxa uu sheegay inuu xilku yahay mid meerta ah si kastaba ha ahaatee arrimahani soo noqonaya ee ragaadiyay dugsiga sare ee Guutaale Secondary School ee magaalada Caynaba ayaa moodaa inaanay waxba kala socon wasiirka wasaaradda waxbarashada Somaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan oo iyadu ah wasiirka wasaaradda ay dugsiyada noocan oo kala ah hoos yimaadaan iyadoona sidoo kale wax kormeer ah u soo dirin sidii xal looga gaari lahaa xalinta khilaafka dugsigani isla markaana indhaha ka qarsatay Maxamed Aadan Dirir telefishinka caalamiga ee Somali Channel Caynaba